بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعانا ونكسن داوداشا قيمها يقدرت نغمدان ميل walba aad joogtaan halkani waa marqaati TV ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka taariikhdu waa 22 bisha December sanadka 2023 daawadaal barnaamijka qaybtan qodobada aynu diradda ku saari doonno waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay duqeymaha Israa'iil ay ka fulinayso marinka Gaza shan taangiga ciidamada Israa'iil ama shan taangi oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil oo goor dhaweed lagu burburiyay Jabaliya dagaalada falka ah ee soconaya waxaan idin haynaa hanjabaadaha ka imaanaya Israa'iil iyo xogo kale oo muhiim ah kuna saabsan go'doominta ay ku sii socdaan reer Yurub ee Iran ay ku dhawaaqday mar kale soo dhawaada daawada fadlan haddaad nagu cusubtaan nagu soo biir waxa ka codsanaya inaad muuqaalka share gareyso la gareyso si uu dad badan u gaaro mahadsanid waqtiga salaada hadii lagu taagan yahay fadlan soo og waa waajib alla ku saaray sidoo kalena dib u soo laabo oo daawo barnaamijka aynu ku dadaalno akhrinta quraanka kariimka tasbiixda adkaarta iyo waliba saliga nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee intaas waa dardaarane barnaamijka ayaynu gudagaleynaa wararka ka imaanaya marinka Gaza waxay sheegayaan in maanta halkaas ay ka soconayaan dagaalo qaraar oo la mid ah kuwii shalay dhacay iyadoo sidoo kalena ay barbar socdaan duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha ciidamada gumeysiga Israa'iil waxaana lagu soo waramayaa in uu jiro qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in ciidamada Israa'iil la soo gaarsiiyay qasaare aad u xooggan Israa'iil waxa ay duqeymo ka geysatay dhismayaal la degan yahay oo ku yaala xerada qaxootiga Jabaliya ee waqooyiga Gaza halkaasi oo la sheegayo in dad badan ay waxyeelo ka soo gaartay iyadoo dadka dhaawacana ilaa iyo xilligan laga soo daabulayo goobta ay wax ka dhaceen Al Jazeera ayaa sidaasi hadda tabinaysa sidoo kalena iska caabinta Falastiiniyiinta ee Gaza ayaa ku dhawaaqay in ay howlgal ay maanta ka fuliyeen xerada Jabaliya inay ku burburiyeen 5 kamid ah taangiyada ciidamada Israa'iil taangiyadan waxay ka mid ahaayeen kuwii lagu gumaadayay shacabka Falastiiniyiinta waxaana tani ay ka dhigan tahay in saacado hore ama gelin hore oo maanta la burburiyo 5 taangi in awoodda iska caabinta Falastiiniyiinta ay aad u sii xoogeysatay sidoo kalena ay aad u daciiftay awoodda ciidamada gumeysiga Israa'iil taangiyadan waa kuwii joogay halkii xababa in ka badan 5 milyan oo dollar markeeba ayaa la yiraahdaa waxaana taangiyadan ay ahaayeen kuwa Israa'iil waayadan dambe ay suuqyada dunida ku haysatay isla markaana loo arkayay inay yihiin taangiyo casri ah oo la jaan qaadi kara dunida waa waqtiyadan cusub sidoo kalena adduunka ay ka baqanayeen taangiyadan awoodooda hase ahaatee madfaca Al Yasin 105 oo ka kooban baasuuka laba madax leh ayaaba 5 milyan maalin kasta lagu burburinayaa maanta oo kaliya waxay Israa'iil dagaalkaasi ku qasaartay taangiyada kaliya markii la fiiriyo in ka badan 25 milyan oo dollarka Mareykanka Israa'iil dhaqaalaheedu iyadoo uu hoos u sii socday ayaa haddana la burburinayaa saanadaheedii iyo waliba hubkii ay ku soo dagaal gashay iyadoo dhinaca kalena ay duqeymo dhanka cirka ah ay ka wadaan goobaha shacabku uu ku badan yahay waxaana ay ka baqanayaan meelaha ay joogaan ciidamada iska caabinta oo waxa la leeyahay askarta Israa'iiliintu waxay ku duceystaan markii ay soo baxayaan in aanay ka hor imaan ciidamada iska caabinta Falastiiniyiinta taasoo ay u arkaan inay tahay cadaab adduun oo ay la kulmayaan haddii ay iska hor yimaadaan sababtu waxay tahay ciidamadii lugeynayay waa la beegsanayaa oo la leynayaa sidoo kalena kuwii taangiyada saarnaa ama ku dhex jirayna waa lagu burburinayaa iyo gaadiidka kale ee gaashaaman in ka badan 1,000 gaari ayaa 2 bil gudahood laga burburiyay ciidamada Israa'iil waxaana ka buuxa taangiyada qaaliga ah ee aan hadda soo sheegayay kuwaas oo iyagu Gaza lagu arkayo iyaga oo daadsan waliba si weyn loo burburiyay Israa'iil way ku adkeysanaysaa inay dagaalka sii wado waxay ku sii hanjabaysaa inay madaxda iska caabinta Falastiiniyiinta ay gacanta ku soo dhigi doonaan ama ay dili doonaan hase ahaatee Falastiiniyiintu waxay sheegeen wax walba oo dhanka Israa'iil ka yimaada ama hadal walba Israa'iil ka yimaada inay tahay mid riya ah dhinaca kalena u soo laabanaynaayay arrimaha Gaza Iran ayaa hadal weyn ku dhawaaqday taasoo qalqal ku beertay markan Yurub xataa Israa'iil kaliya ma aha Yurub oo dhan ayaa markan qalqal lagu beeray dawladda Iran ayaa markii ugu horeysay ku hanjabtay inay qaadi doonaan talaab weyn oo adag oo ay ku xireyso marinbiyoodka lagu magacaabo Gibraltar iyo waliba marinbiyoodyo kale oo badda Mediterranean-ka ah haddii Mareykanka iyo xulafadiisa ay sii wadaan gurmadka iyo gargaarka ay siinayaan Israa'iil iyo waliba inay ku sii lug yeeshaan dambiyada dagaalka ah ee ka dhacaya marinka Gaza iyo guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta waxaana Iran ay sheegtay in hadalkan aanu noqon doonin mid
يعني la iska dhaho laakiin dunida oo dhan ay dareemi doonto tallaabada ay qaadaan oo ay marbiyodan ay xiri doonaan hadalkan waxa laga soo xigtay taliyaha isku xirka ciidanka ilaalada kacaanka General Maxamed Raza Naqdi oo isagu lagu yaqaano inaanu la gamban hadalada isla markaana hadalka uu yiraahdo ay tahay mid dawladda Iran oo dhan ay wada siman tahay Iran si ay uga dhabayso xiritaanka marinbiyoodkan badda Mediterranean-ka waa inay adeegsataa weerar ay qaadaan ciidamada loo yaqaano Polisario ee Algeria oo ay taageerto Iran maadaama Morocco oo ah dalka kale ee ugu dhow marinkan uu xiriir wanaagsan la leeyahay dhanka Israa'iil haddii marka weerarka uu ka dhaco marinkan oo maalintii ay adeegsadaan in ka badan 300 oo markab waxa ay ka dhigan tahay in uu istaagay ku dhawaad boqolkiiba 20 wadarta ganacsiga badda ee adduunka sidoo kalena boqolkiiba 80 saliidda iyo waliba gaaska midowga Yurub ayaa joogsan doona taasina waxay soo dejin doontaa in reer Yurub waa dareemi kartaan sida noqon doonaan marka haddii hadalkan Iran ay ku dhawaaqday dhab ayaa loo qaadanayaa Yurub oo dhan shalay waa ogeedeen oo Ingiriiskii xooga badnaa oo yaani dhahayay Israa'iil ay galayaan shacabka ra'iisul wasaarahoodii ayaa dib uga laabtay oo yaani hadda xabad joojin qasab waa in la helaa Yurub oo dhanna hadda feelkaas ay gali doonaan oo waxay dhihi doonaan dagaalkan annagii ayuuba si dadba noogu yimid warbal hana laga joojiyo Israa'iil si awood ah ayay ku joojin doonaan haddii taasi ay dhici weydo waxa la weyn doonaa iftiin ka baxa Yurub sidoo kalena waxa la weyn doonaa wax ay raashinka ku karsadaan ama sidoo kale xitaa qabowga ay isaga diiramaad ku sameeyaan maadaama gaaska iyo saliidaba ay howlahan soo sheegay kaalin weyn ay ka qaataan marka waxa la leeyahay Iran farintan way dirtay waana ka dhaweyn doontaa oo xuutiyiinta kaliya ayaa talaabadii ay qaadeen waxa ay qalqal weyn ku beertay dunida ka warama haddii Iran ay qaado talaabadan waa dareemi kartaan meeshaasi waxa ka dhici karo waayahay dhinaca kalena haddii aynu eegno qoraaga Mareykanka ee Thomas Friedman waxa uu sheegay in la joogo waqtigii uu Mareykanka u sheegi lahaa Israa'iil in aysan ka gaari karin hadafkeeda dagaalka inay baabi'iso Hamas waa fariin kale oo Mareykanka dhaxdooda isku dirayaan sababtoo ay tahay Mareykanka waxa uu ogaaday in Israa'iil xaalkeeda uusan wanaagsaneyn isla markaana sidii la moodayay aanay noqon la mood se noqon weeyday hore maamadaas u maqasheen oo Soomaalida aad ay u adeegsadaan qofkan yaani waxa laga aaminsan yahay inuu yahay qof aqoon badan leh qof tacliin sare haysta qof yaani akhyaar ah qof markaas waxa la arkayaa qofkii oo markii dambe dhiiqa dhax walaaqanaya oo meeshii laga filayay aqoontii iyo way aragnimadii laga filayay meel ka sii hooseyso aan u dhaweyn isaga oo joogo marka waxay yiraahdaan la mood se noqon weeyday marka hadda cadaadiskaas ayaa la saarayaa Israa'iil Mareykanka iyo waliba Yurub oo dhan ayaa markan isku soo bahaysan doona iyaga ayaana dan ugu jirta inay dagaalkan joojiyaan oo Hamas ay bariyaan iyo waliba guud ahaan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta loona sameeyo waxa ay rabaan dadka Falastiiniyiinta wasiirka difaaca ee Israa'iil Gallant isna waxa uu sheegay inay ku haminayaan oo ay rajeynayaan dhawaan in uu sinwar la kulmi doono rasaasta Israa'iil waa sidoo hadalka u dhigay hase ahaatee Falastiiniyiinta ayaa soo hadlay markiiba oo ka jawaabay hadalkaas waxay yiraahdeen waxan waa riyo maalmeed aad ku jirtaan riyadii aad hore ugu fashilanteen ayaad wadaane bal kaalaya sinwar u imaada waxaad ka heshaan ayaad leedihiin يعني iska caabinta markan awood badan ayay la soo baxday dagaalada meel adag ay marayaan guulo badan ayay ka gaareen furmaha hore oo dagaalka ciidamadii Israa'iilna maalinta ka dambaysa waxay ku jabayaan dagaalka xeer waxay gaareen furin dagaal oo laga soo celiyay inay u dabaaldegaan yani maadaama ay nool yihiin oo ay ka badbaadeen rasaasta iska caabinta Falastiiniyiinta hadaba daawad maxay kula taariikhda fadlan qaybta hoose committee noogu mahadsanid barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawanaysa Marqaati TV qaybta naga inta barnaamijka kan xigeentan ku kulmeyno nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh